Waate magaalada loogu yeero caasimada Furniinka oo ay hadda ka soo baxeen lamaane u dabaaldegaya 50 sano guuradooda. Intaan u guda galin sheekadan xiisaha badan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato, waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto maasanid. Lamaane ku nool magaalada la yiraahdo Kano ee loo yaqaano caasimada Furniinka ee dalka Nigeria ayaa lagu amaanay guurkooda dheer ama waqtiga dheer soo jiray kadib markii ay dhawaan u dabaaldegeen sanad guuradoodii 50aad ee ka soo wareegatay guurkooda. Maxamuud Kabar Yuusuf iyo marwadiisa oo u waramay warbaahinta BBC-da ayaa sheegay sirta ka dambeysa farxadooda iyo waliba sababta guurka tirada badan uu ugu qasaarayo magaalada waqooyiga Nigeria ku taalo ee Kano. Intii uu wareysiga socday ayaa waxaa ka muuqatay lamaanahan farxad xad dhaaf ah taas oo falcelin badan ka dhalisay baraha bulshada. Maxamuud Kabar Yuusuf ayaa arinta farxadooda waxa uu ku micneeyay in xaaskiisa ay leedahay sifooyin badan taas oo ay ka mid tahay sifooyin deeqsinimo iyo naxariis ku dhisan. Waxa uu sidoo kale sheegay in xaaskiisa ay tahay qof nafurid badan, wax badanna ka soo shaqeysay in guurkooda iyo waliba qoyskooda uu guuleysto. Markii ay weerahaasi afkiisa ka soo baxeen xaaska ninkan oo lagu magacaabo Tahar, waxaa ka muuqatay farxad fara badan. Tahar oo iyada qudheeda ah da'da 60-maadka waxay sheegtay in ninkeeda uu leeyahay dulqaad dheeri ah iyo sidoo kale naxariis. Waxa ay sheegtay in qoyskeeda marka ay dhibaato soo wajahaan uu si degan u xaliyo. Tahar iyo Maxamuud waxa ka dhaxdhashay caruur gaaraysa 13 qofood. Intii uu socday wareysigan ayaa lamaanahan waxa ka muuqday farxad xad dhaaf ah, mid walbana dhoosha ayuu ka qoslayay. Waxa ay sheegeen in ay jecel yihiin is ixtiraamaan sidoo kalena ay isku indhoogsadaan. Xasna Maxamuud oo 39 jir ah la furayna tiro 5 jeer ah, waxaa la yaab ku ah qoyskan 50 sano guurada u dabaaldegaya. Waxa ay sheegtay in ay la dhacsan tahay qoyskan, waxayna sheegtay sidoo kale in ay ku faraxsan tahay sida ay raali isaga yihiin. Dhammaan guurkeygii waa uu qasaaray oo hal nin oo kaliya ayaa la joogay muddo 4 sanadood ah. Waxaa la yaab igu noqotay markii aan baraha bulshada ka arkay qoyskan u dabaaldegaya 50 sano guuradooda. Waxaase mararka qaar murugo aan dareemaa markii aan arko dadka ugu yeeraya magaalada Kano caasimada Furniinka ee Nigeria. Waxaan rajeynayaa in ay wax badan iska bedeli doonaan ay tiri. Dhammaan nimankaygii waxay ahaayeen kuwo naxariis iyo daryeel badan xilligii shukaansiga, balse markii aan isguursanay wax walba way isbedeleen ay tiri hooyadan lagu magacaabo Xasna Maxamuud oo 4 caruur ah dhashay. Magaalada Kano waxaa magacan loogu yeeray kadib markii heerka Furniinka ee magaaladan uu gaaray meel sare 90maadkii. Magaaladanna ma aysan helin qof ka tirtira magacaasi oo sumcadeedii dib u soo celiya.